horyaalka Serie A Talyaaniga waxaa si wacan oo wanaagsan u daadihinaysa kooxda Roma oo toddobaadkan ku joogsatay sida loo ciyaarana bartay kooxda Inter oo inta loogu tagay istaadiyadeeda magaalada Milano ee San Siro la liqsiiyay 3 gool oo xanuun badan waana mid lala yaaban yahay ciyaarta cusub oo ay la soo baxday kooxda Roma oo sanadka kan macallin cusub yeelatay macallinkaasi oo la yiraahdo Garcia khubarada ku xeel dheer ciyaaraha waxa ay leeyihiin Garcia waxa kaliya ee uu soo kordhiyay waxa ay tahay isagoo kalsoonida ku soo celiyay oo kana dhigay kooxda kuwa isku duuban oo uu yirina oo kaliya waa kaas Bolonigii ciyaara waxaana la arkay kabtan Francesco Totti oo dhinac kasta ka dheelaya oo Boloniga qaybinaya xariiftamaya goolna dhalinaya waxaana si aada u dhismay khadka dhexe waxaana aad loola dhacay weeraryahan Gervinho oo u dhashay dalka Ivory Coast oo noqdayna argagaxa iyo murugta difaaciyada ciyaartii haddaba ka dhacday San Siro ee magaalada Milano Roma waxa Inter ay kaga laacday qaybta hore ciyaarta iyadoo soo bandhigaysana ciyaar la jeclaado oo loo bogo waxaana durbadiiba difaaca Inter waalay Gervinho oo inuu ordayay inuu duulayo la kala garan waayay goolka horena isaga ayaa farsamadiisa lahaa maxaa yeelay Bologna loo soo dhiibay ayaa waxa farta uu ka saaray Totti oo isna isagoo meel kale aan fiirinin lugta midigta la helay Bologna darbe ah halkaasna daqiiqadii 18aad ka dhaliyay goolka hore ee Roma. Attenzione a Roma che attacca con Florenzi, palla limite Gervinho, c'è Totti in zona, attende Gervinho, scarica su Totti, parte il tiro, rete, Totti gran gol, Roma in vantaggio al 18esimo. Inter oo qaadan weysay goolkaasina waxa ay isku dayday inay soo celiso goolka lagu leeyahay waxaana u suurta gashay in Guarin uu darbeeyo Bologna dhagax la moodo oo ruuxay alwaaxa goolka Roma hase yeeshee mar kastaba dhinaca Roma waxa ka muuqanayay wiilka difaaca Inter khalkhalka galiyay oo Gervinho oo xariiftan ku saqraamiyay Pereira oo isna u adkaysan waayay sida loogu jeesayay jilaafana ku lagday aaga rigooraha wariyaanka Roma ee Gervinho rigore waxaana loo xil saaray rigoorahaasi inuu darbeeyo Francesco Totti oo halkaasna ka dhaliyay goolka labaad waana daqiiqadii 40aad qaybta hore ee ciyaarta 4 daqiiqo kadib Francesco Totti oo ku soo noqday sidii uu waaye ahaan jiray ayaa Bologna uu si mucjiso ah u soo habeeyay waxa uu weefiyay Strootman oo inta isna Bologna la cararay ayaa difaaca Inter oo weerarsan waxa Bologna uu farta ka saaray Florenzi oo dhaliyay goolka saddexaad ee Roma. L'azione impostata da Strootman, c'è Florenzi a destra, il pallone per lui, Florenzi, il tiro, rete! Florenzi al 44esimo, 3-0 della Roma. Waxa lagu kala nastay 3-0 kaasi. qaybta labaad ciyaarta waxba iskama bedelin oo Roma ayaa mar kastaba lugta ku haysay ciyaarta halkaas ayaana lagu burburiyay Inter oo si kastaba aan la dhihi kareynin ma ciyaarin hase yeeshee waxa ay shay koox ka awood badan